15 ilaa 18 ay u badnaa inta badan kuwi laakiin 25 ilaa kadib uma tagin waa ka soo tagay kuwi 18 waxaan ay qolada 15 waxaan la heshiyay in jaakadaana ay eegsiyan lacag yar libaax qoy dunida heer waxay maraysaa ay ku xisaabtanto sentiyar balse dalkeenu wuxuu maray heer uu ku xisaabtamo dollar maxaa sabab maxaan ka soo garay brad dunida waxa saameyn ku leh ganacsigooda dawladda iyo shacabka saas limid ah marka ganacsiga Soomaaliya saameyn waxa ku leh shacabka halka doorka dawladdu oo aad u hooseeyo sababtoo ah dawladdu saameyn kuma dhaxlaha ganacsatada balse cagsigeeda ganacsatada ayaa saameyn ku dhaxleh dawladda dhexdeeda waa sida hore u aragteen siyaasiyiinta oo ka cabanaya ganacsatada oo la haayeen xilliga doorashada waa inay fara kala baxaan siyaasadda sida darteed marka waxa meesha ku cad in ribadu aan la xakameyn karin in wax ay doonayaan ee ka samaysan dhankaas balse dhanka doorka bulshada waxa la rabay sidii marba ganacsatada ay u tashtaan in bulshada u tashato waxaana jeclayst videoani inaan kula tashto kulana wadaago talooyin kaasiyo oo ku hakeyn garay karto waxa laga siilahay qiimo ka dheer qiimihiisa oo ku hakeyn garay karto ku jooji karto qiimo macquul ah lagu sii karo adin fikirkaagii dadka aad u wadaagtay xagga commentiga waan u wadaagi kartaa saaxiibada waayo waxa laga yaabaa inaad talooyin kala heshid waxa laga yaabaa inaad way argan dheer tahay waxa laga yaabaa inaad tahay qof ganacsiga in badan ku soo jiray saadartay marka video waxaan kula talinayaa lix way ka caawinaya in la wixii laga sii jiray qaali in raqiis am lacagta u qalmo markaasi laga siiyo oo lu dul saari karin ribo ama lacag zaid u dheer lacagtaasi saadartay marka saaxib hadii aad channelka cusub tahay subscribe isar lacagtu way dhiirgelin share saaxibka ku gaarsi ko markaad xiranayso kabtan waa ogahay inaadan aaminin dharkaaga inuu saameyn ku yeelanayo waxa aad doonayso inaad iibsatid tan waxa ogaataa in labiskaaga lagu qiimeynayo jeebkaaga sidaa darteed marka waxay isticmaalayaan tekniik ah inay ku akhriyaan adiga oo markaas labiskaaga kugu qiimeeyaan inuu yahay inaad tahay qof markaas jeebkiisa buuxo ay in kalaba sidaa darteed marka waa sida hadda u dheeha kartaba qofka gaajaysan iyo qofka dherganba sidaas lamid ah marka sheega wadatid iyo labiskaaga qiimihiisa waa inta aad lacag jeebka ay ku jirtaa sidaa darteed marka wuxuu ku xisaabtamaan waxaan aaminsan qofka labiskiisa sareeyo inuu lacag fiican hayo waayo waa macnaha formulooyinka ayaga ay soo qaataan marka ay wax doonayaan inay wax iibiyaan sidaa darteed marka waxa u baahan tahay kabtan si aad xakan ugu sameeyay arintaas inaad isticmaasho tekniik ah ciyaarka xaafadda labiska xirnays waa inuu ahaado ciyaarka xaafadda labisida normal ah sidaa darteed kuwaas waxay ka caawinayaan in ku laqmaan qaab ciyaar xaafadda ah labiska ciyaarka xaafadda wuxuu ka caawinaya in sheygaas lacag yar u kaasiyo halka labiska kale uu ka dhigay mid hanti haysta hadii hanti haysta xataa aadan doonin in macnaha oo kuwan lacag ka qaadaan arintan lacag badan laga qaado waxa ogaataa in tekniigan uu ka caawinayo lacag yar ka qaadaan labo yeesan ku raacin dumar ogow kabtan dumar baa kula socoto waxaana ay loo sheegaa marba hadii dumarku wiilka ila socoto inuu jeeb furan yahay sidaa darteed marka wuxuu isku dayayaan inay kugu markaas kugu dhibac badsan si ay markaas kugu jilciyaan oo aleen adiga ay soo wadatay bogtaada ah meesha ka nuugashay sidaa darteed marka waxay jeclaystaa markaas waxay sameeyaan inay kugu ataagrayaan gabadhaasi si ay markaas hadallo kugu dhaxdo ayagana hadallo kugu daraan oo aad markaas u jilcad jeebkuna u firaaqaysid tii marka taas ugu dhicin kabtan halistaas ka fogow oo si oo fogaa karto waxa ay tahay inaad dumar badan waayo ka soo qaad waxa jecesha maanta inuu dumar wax ku dooqdo waxa laga yaabaa marka ay ku dooqayso in shay ayada ka ajibiyo qurux badan oo ku dhahda kan qaadashada kan iyo ayaga wuxuu ku sameeyay markaas xayisiin ah kaas inuu saas yahay hadaa xirtin saas uu si yahay kadibna marka lacagta la imaado hadii aad dhigtid wuxuu ku dhahayaa baqalim iska dhaaf waxan waa jirkaaga urooyin hadan dooq saaxiibadaada waay ama dooqa xaaskaaga waay saadartay marka meesha wuxuu isku dayaan inay ku dabaqaan qoftan dooqeed ku cajoonin miya macnaha waxay imaanaysaa in markaasi qofta kulli socodba si ay ku fahanto adina aad isdhahay markaasi muxuu xumaynaa warkan kale ayagna muhiimada ma xumaan in shaqo muhiimada waa in lacag kala soo baxan jeebkaaga saadartay marka halista si oo fogaatid waxa haboon adoo qaleel ah saaxiib rag iska wadid ciyaar xaafadda kadibna lacag yar ee kaasiyaan saddex kabtan daarinta oo aad sheegay aduunis waayo waxay isdhahayaan ku dhufso qofkani oo sheegana zaid buu u raadinayo ku dhufso lacag fiican uu qaado saadartay marka am wuxuu qiimeynaa in sheega meelaha kale kasoo baas am wuxuu qiimeynaa sheegana duruur tahay saadartay marka waxay isdhahaan ku dhufso lacag fiican sidaas lamida marka hadii aad markaas soo meemersid kaliya oo ka dhigtid wax indhaha ay qabtay oo kaliya waxay isdhahaan qofkani lacagtan ku dhaafsiin ha ka qaato markan sheegani sambal waxa u baahan tahay kabaha kooyaha ah
waxaa la iska aadaa kabaha noocyada kala duwan buudka kadibna waxaa soo maraa kadib kabaha rabtid ayaa lahaay waayo noocan ii sheeg qiimihiisa sidaa darteed marka waxaa ogaataa in shay walba oo aad doonaysa inaadan daaragtu aadin aad soo mameeristid kadib aa u maadid shaygaasi inay tahay mid fiican lacagtaadana laga yaabee in shayga qiimihiis u yahay xataa wax ay kaa dhimaan sax waxaa laga yaabaa meeshaan in dad badan lagu gaaday meeshaan in dad badan markaasi lacag badan lagu qaatay waayo waa meesha ugu dambeysa badan dadka ay lacag badan lagu qaado meeshaan waa meesha ay dad badan ku fashilmaan saa darteed marka shayga markuu yahay sambal $25 ayaga sida cad oo labada ogyahay waxa ay sheegtaan $45 marka ayaga intii wax iska ilaanay in ayaga minus gelisid ama ayaga in faa'iido wax ka reebatid sidaa darteed marka looma baahna adina inaad jeebkaaga firtiysid waxa u baahanta saaxib marab inaad isticmaashid kala qaybinta qiimaha afkooda ay ka sheegteen waxaana ka caawinaysaa midaasi in shaygaas reality-giisa qiimaha sax laga siiyo waayo haddii sambal $25 shaygaas iska sheegtaninka adina waxaa loo baahan yahay inaad sheegatid $10 haddii aad $18 $20 ilaa hadda ayaga waxaa ka faa'iido badan sidaa darteed looma baahna midaasi oo adiga waxaa laga baahan yahay inaad noo kala bardhaadid $10 $12 $11 inaad sheegatid kadib waxaa isla imaanaysaan qiimaha saxda oo magaalka lagu gado shaygaas kala barka qiimaha ay sheegtaan waxay ka caawinaysaa in shaygan lacag yar ay ka siiyaan halka ay lacag badan ku sheegteen oo lacagtaasina ay ahayd mid ribo ah oo doonayeen ayaga inay faa'iidada ku firiteen saa darteed marka ka soo qaad shaygan oo ku heshiiwaysan qiimihiisa waayo wuxuu sheeganaa ninkan qiimo aan macquul ahayn taasina waxay pressure kugu saaraysaa baraad in shaygan ka tag ama gada ah sidaa darteed marka waxaa u baahan tahay adi marka in shaygani aa u baahan tahay maanta inaadan ka tagin oo aad doonaysan lacag yar inaad ku qaadatid sidaa darteed marka waxaa u baahan tahay inaad isticmaashid xeelad sababta hadduu ninka dareemo in shaygan daruuri u tahay ogow meeshuu ku dhigo kama foqaayo baraada lambarkuu ku dhigo kama foqaayo waayo wuxuu og yahay inaad shaygan zaid ugu baahan tahay aadan ka tagi karin wuxuuna dareemayaa ninkan in shaygan aad daruuri tahay balse haddii aad markaas dareensiiso inaad ka tagi kartid shaygan waal waxaa ah inuu kaa daba imaanayo kuuna waacayo hadduusan kuu wicin ogow adigaa la baahan inaad usoo laabatid waayo ninkaasi qof lacag diidaya ma laha wuxuu markaas waxay taagan tahay xaaladda meesha u dambeysay waa inaad gadataa shaygaas haddii markaas aa u baahan tahay saaxiib qiimaha saxda shaygani inaad soo ogaatid waxay kaa caawinaysaa in shaygaas aad lacag yar ku heshid sababtoo ah shaygan haddaadan soo ogaan suuq waxaa ka jawabraada in lambarkii lagu sheegay aad gadi doontid kadibna aad meenas geli doontid saa darteed intay taas kugu dhacay saaxiib waxaa ogaataa inay muhiim tahay inaad suuqa tagtid shaygan suuq qiimaha ka jiro soo ogaatid taasina waxaa kaa caawinaysaa inaad lacag yar ku heshid shaygan haddii kale maahano qiimaha ugu macquulsan shaygaas u joogo inaad gadato sidaa darteed marka si aad u gadato waxaan jecel videoan kula leeyahay videoan wuxuu kaa caawinayay 6 qaab oo aad lacagta ku xakin gareey karto lacagta badan ee sheeganayaan ay dul saaranayaan si markaas aad u hesho shayga doonaysid lacag yar sidaa darteed marka intaas waxaa helaa minti basic maanta aan jecel inaan ku wadaag haddii aad channel ku subscribe laagta waa idin share saaxiibka gaarsi